الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم walaalayaal darsigeennii hore waxaan soo gaadhnay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisii waan ka soo hadalnay nuurka ilaahay inoo soo diray moxamed udgoonaha inuu dhashay maalin isniina ayaan ka soo hadalnay bishuna 12 ay tahay sanadku uu yahay caamul fiil san hore uga soo hadalnay waxay waafaqsanayd bisha abriil 22keegii ama 22keegii sanadku 571 ayuu ahaa milaadiga waxaa dhashay maalinkaa weyn maalinkaa isniinta ah nebi moxamed baa dhashay sala allahu calayhi wasalam nebigu maalinka isniinta waa soomi jiray markii la weydiiyeyna waxa uu yidhi daaka yowmun wulidtu fiih waa maalinkan dhashay ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam khayru khalqi illaah munqida alinsaaniya kii ummaddan badbaadinayay bashariyadan ayaa dhashay de waxaan la joognaa dhalashadii nebigeena calayhi salaatu wassalaam waa maalin weyn waa maalin kownka oo dhan u farxayo li'annahu bashariyadda baaba iyo halaag ayay ku jirta dadku khamra la cabbaa zinadaa faaftay waxaa jira 360 sanam in ka badan ayaa la caabudaa ilaah lama garanayo waa la islaayaa wax badbaadiye ayay ummaddu rabtay markaas ilaahay waa u naxariistay ummaddan nebi moxamed baa dhashay sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed laakiin agoon buu dhashay aabbo muu arag aabbihii waan ka soo hadalnay nebiga imse jir buu ku dhintay isaga oo 25 jira ayuu aabbihii dhintay nebiguna calooshuu ku jiray sala allahu calayhi wasalam wax dhaxal uu uga tegay nebi moxamed ma jiro culummada qaarkood waxay yidhaahdaan wuxuu uga tegay 5 awr iyo in yaroo adhiya iyo addoon xabashiyad ahayd oo magaceega la odhan jiray baraka waxaa loogu yeedhi jiray ummu ayman waad wala garanaysaan ummu ayman ayuu uga tegey ummu ayman waxay ahayd tii nebiga soo korisay calayhi salaatu wassalaam nebigu aad buu u jeclaa iyadaa soo korisay oo ihtimaam aad u saartay nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaa uu nebigu ka weynaaday wuu xoreeyey nebigu wuxuu u gooreeyey zayd ibnu xaarisa oo addoon ahaa isagana u xoreeyey ayuu nebigu u guuriyey waxay u dhashay usaama ibnu zayd waad wala garanaysaan nebigu aad buu u jeclaa ummu ayman wuxuu odhan jiray nebigu ummu ayman ummii bacda ummii waa hooyaday kadib waa tii isoo korisay buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wassalaam anas waxa uu yidhi maalin baa nebiga raacay calayhi salaatu wassalaam isagoo oo soo booqanaya ummu ayman isagoo oo soo booqanaya ayaa nebiga raacay gurigii ummu ayman baan soo galnay nebiga wuu dhunkaday calayhi salaatu wassalaam caanay siisay marka nebiga se u jeclaad u fiirso caano ayay siisay nebigu miyuu soomanaa mise wuu iska diidayey ma garanayo wuxuu yidhi ma karayo waxa uu yidhi fajacalat taskhubu calayhi ku dhawaaqaysa cab caanaha cab baan ku leeyahay cab
والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو يدي وتسوكر السي نبينا عليه الصلاة والسلام مدح أي كفوري صدى سؤها محمد عليه الصلاة والسلام وحاجري وعادة عربت أهيد عرورتا كلها تمكة مكة ومقالو عذر بدن با iska jira luqada waxa la rabaa ilmuhu inuu saan u barto luqada carabida waxa la rabaa jirkiisu inuu adkaado caafimaad helo waa in hawada iyo baadiyaha loo saaro caadadooda waxa ahaan jirtay dumar ayaa baadiyaha ka iman jiray markay iman jireen caruurta ayay raadsan jireen caruurta loo dhiibi jiray dad lagu aamini jiray caruurtaas baadiyaha geen jireen naaskii muusin jireen waxbay soo bari jireen marka nabiga calayhi salaatu wassalaam haweenaydii ugu horeysay ee naaska muujisay hooyadii bay ahayd waxaa ka dambaysay haweeney la yidhaahdo thuwaybiya ayaa la yidhaahdaa thuwaybiya addoon ayay u ahayd odaygii adeerkii abulahab waad garanaysaan ma addoontiisa ahayd markii loo sheegay abulahab iyadaa u bishaaraysay oo tiri walaalka cabdillaahi inan baa u dhashay farxaddii buu ku yidhi adna xor baad farxad awgeed xor baa tahay buu ku yidhi abulahab kadib walaalkii oo cabbaas ayaa waxa uu yidhi dagaalkii badar kadib abulahab waa dhintay ayaan riyo ku arkay buu yidhi markaasaan ku idhi iiga warran waxa uu yidhi naarta la igeliyey laakiin maalinka isniinta oo qurata la iga khafiifiyaa naarta farxaddii aan farxay maalinka maxamed uu dhashay een u xoreeyey gabadhii thuwaybiye la oranayay maalinkaasaa la iga khafiifiyaa naarta calaa kullin safar baa yimid marka reer bani sacad waa qabiil la yidhaahdo baadiyahay ka yimaadeen dumar baa isa soo urursaday makaa la tegayaa carruurta ayaa la kaxaynayaa haweeneyda lacag baa lagu siinayaa inta ilmaha ay hayso oo dhan lacag baa lagu siinayaa xoolaa lagu bixiyaa iyaguna carruurtaasi soo korinayaan soo barbaarinayaan nebiga calayhi الsalaatu wassalaam haweeneyda ku soo hagaagtay waxaa la odhanaya xaliima asacdiya la odhan jiray iyadaa ka warramaysa dhegaysta waxa ay leedahay xaliima waxa ay tidhi waxaan ka soo baxay bay tidhi qaryadayadii tuuladii baadiyihii baanu ka nimid aniga iyo dumar badan waxa ay la socday bay tidhi odaygayga iyo inan yar oon dhalay anigu dumar badan oo reer bani sacad bini bakr ayaan la soconnay bay tidhi waxaanu u nimid maka inaan carruurta aan kaxaysanno oon soo korinno oo lacagna lagu siiyo waxay tidhi sanadku wuxuu ahaa sanad abaareed buu ahaa abaar xoog leh ayaa jirta lam tubqi lanaa shay-a wax ay nooga tagtay ma jirto xoolihii oo dhan baa naga dhintay waan abaaraysannahay waxa ay tidhi waxaan wadanaa dameer baan fuushanahay tidhi anigu odaygaguna hal aad u liidata oon caana lahayn ayaan wadannaa wallaahi wax caano oon ka helayna ma jirta bay tiri habeenkii ma seexanno ka yar baa aad u gaajoonaya caanana uma hayno hashu caana male naasahayguna caana male cunto kalena ma haysanno habeenkii ma seexanno ka yar qayladiis ka yaran wadanno waxa ay tidhi dameertan aan fuushannahayna aad ba u liidataa jilbahana way ka xanuunsanaysaa way socon kari laadahay dumarkii kale laga badi waa la baratamayaa oo carruurta dadkoogu lacagta ay leeyihiin ayaa loo cararayaa waa la goranayaa lacag buu ziyaado u ku siinoo xooluu ku raacinoo waxay tidhi anigu waan ugu dambaynaa safarka waan dhaqaaqa kale laanahay ilaahay baa wax ka raba meesha waxa ay tidhi markii aanu nimid maka carruurtii oo dhanba waa la wada qaatay gurigii aanu nimid waxaa la yidhi waa agoon
aabbihii wuu dhintay awowgii baa korsada iyo hooyadii buu la joogaa agoon muxuu ii qaban waan ka meeraysay ilmo kale raadiyey waxba waan ka waayay tiri waxay tiri waxaan ka xishooday inaan noqdo anuuna waxba aan wadan dumarkii kale igu qosli dameerta sidaa kugu wacnayd iyo waxbaa la odhan markaa waxay tiri odaygaygaan waxaan ku idhi wallaahi innii la akrahu an arjica min bayni sawaaxibii walam aakhud radiica wallaahi waan ka xishoonayaa waan karhayaa ma doonayo inaan dib u noqdo oy dumarkii igu qosqoslaan anuuna waxba wadan ilmo yar waa inaan kaxayso kii yaraa baan ku noqonayaa bay tiri agoonka ah wallaahi la adhabanna ilaa daalika alyatiim agoonka ha yar baan u tegayaa waan qaadan waayahay buu igu yidhi laa calayk korkaaga waxba ma ahe orod dhaqaaqaye waxa ay tidhi waxaa laga yaabaa ayaan ku idhi inuu ilaahay barako ii geliyo ma oga inay moxamed qaadayso sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay inay rabbaynayso nebi moxamed ma oga barako waxaa laga yaabaa inuu ilaahay barako ii geliyo ninka daaciga waxaa la rabaa inuu ogaado barakada meeshay ku jirta allahu aclam wix ilaahay kuu doorto qaado waxaa laga yaabaa shay yar ood leedahay waa aad yaraysanaysa inuu ilaahay barako iyo khayr kuu geliyo iyo wanaag inuu ilaahay kuu geliyo ayaa laga yaabaa oday baa miyiga iyo qodax ku mudday jabuuti baa la keenay waa beri hore waa laga saari kari waayey sacuudigaa loo dhoofiyey waa laga saaray waa qodax meel xun ka gash markii uu doonay inuu noqdo lagu yidhi ha noqonina iska joogo waddanka jinsiyaddii sacuudiga iyo waxbuu qaatay waa ragga ugu taajirsan maanta sacuudiga baadiyuhu ka yimid qodax baa ka keentay waxay qaaday nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa ay tidhi markaan gurigii aan tegey een ki yaraa idhi waan qaadayaa dumarkii kale way ka tegeen nasiib xumadooda way ka tegeen mar alla markii aan qaadee bay tidhi ki yaraa isla markiiba naasahaygii baa shanqarhayaba cano guux ayaa ka soo socda waxa ay tidhi waan qabtay dhabtaan ku qabtay naasahaygiiba caano ayaa ka da'aya afkaan u geliyey bay tiri wuu cabbay waa afkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuu cabbay wiilkaygii yaraayo meesha qayriga gaajo ayaan soo qaado isagiina waan ku qabtay wuu dhargo wuu khuriyeyba waxay tidhi odaygaygii wuxuu u jeestay xaggaa iyo hashii waa hashii oo caano idna da'ays waa barakada nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam weel buu qaado wuu noo soo lisay markaasaa wuxuu idhi aaba waxaa dhacay waa maxay cajiib barakadan maxay ka timid caanihii baan cabne bay tidhi labadayadiiba bitnaa khayra leyla habeenkii ugu fiicnaa baan seexannay annagoo dregsan ayaan seexannay ilmi yaraana iska seexday waxa ay tidhi barakada ayaan garanay markiiba odaygaygii baa wuxuu igu yidhi taclami yaa wallaahi yaa xaliima laqad akhadtii nasmatan mubaaraka naf barakaysan ayaad inoo soo qaaday xaliimay naf barakaysan ayaad inoo soo qaaday waxay tidhi markii la diyaar garoobay waa la dhaqaaqay habeenkii xaggii baa loo hoyday maka anigu ilmihii yaraa baan qabtay dhabtaan ku qabtay isna ilmahaygii yaraa buu qabtay hashi buu la fuulay marka waxa ay tidhi dameertii buu ilaahay quwad durba siiyey waa la dhaqaaqay dumarkii kalena waa dhaqaaqeen waxay tidhi dumarku muddo naga horeeyeen waxa ay tidhi wallaahi waxa aan ka yaabay siday u dhaqaaqaysay dhaqsabadnida ayaan ka yaabay dumarkii kalean dhaafnay markaasay ii dhawaaqeen oo yidhaahdeen yabnata abi du'ayb wayxaki hoogaaga arbicii calayna bal noo yara dhibri in yar aayar u soco xaggeed u ordaysaa miyayna ahayn dameertii liidatay ee loo soo socon kari lahay markaasaa waxay tihi waxaan ku idhi balaa wallaahi haa waa iyadii maan bedeli markaasay waxay idheen wallaahi inna lahaa sha'na arrin kalaa u sugan
cajiib waxbaa jira meesha waxa ay tiri dhulkayagii baanu nimid baadiyihii reer bani sacad ayaanu nimid wallaahi wax ka abaaraysan ma jiro abaar xoog leh waxa ay tiri mar alla markii nebi moxamed aan meeshii la nimid dhulkii ilaahay barako noo geliyey adhigaan dirnaa dhulka oo abaara waxay soo noqdaan iyaga oo caana da'aya ayay soo noqdaan kuwii kale adhiga markay diraan adhigoo soodii ayaa soo noqda yaab markaasaa kuwii adhiga u eegayey ayaa waxa ay ku yidhaahdeen war meesha adhiga ay daajiyaan inunkuna orda oo soo daajiya meesha adhiga ay ku eegaan inunkuna ku soo eega meeshaasay ku eegayeen iyakana waxay u noqdaan adhigoogii iyaka oo sidoodiiya annakana iyada oo maarata ay nimcaysan yihiin waa barakada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mubaarak ayuu ahaa nebi moxamed mid barakaysan ayuu ah waxa ay tidhi khayr baa meeshii noo furmay dhulkii ilaahay waa noo barakeeyey 2 sano sidaas ayaan ku jirnay 2 sano markii ay dhammaatay waxa uu ahaabay tidhi yashubbu yacni waxa uu korayey si ayna dhalinta iyo ciyaalku ayna u korin ayuu u korayey quwadda u beeraysa iyo casaanka iyo quruxda iyo hadalka iyo maaragta waxa ay tidhi wax lamida maanu arag in yar kadibba waxa uu noqday wiil yar oo qurux badan oo adag ayuu noqday oo hadalkana waa 2 sano hadalkana siduu u yaqaana aad malayn waxa dhacay yacni luqada carabida nebigu wuxuu ahaa fasiix buu ahaa abubakar sadiiq baa waxa uu ku yidhi yaa rasuula allah maan arag carab wax kaa fasiixsan maan arag nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wassalaam wamaa yamnacunii wa ana min quraysh maxaa ii diidaya fasaaxada anigu quraysh baan ka dhashay wa ardactu min bayni sacad reer bani sacadna xalime iyo meeshan xaggaana naaskaa la igu soo nuujiyey xaggaasaan ku soo barbaaray oo luqada ku soo bartay maxaa ii diidaya saasuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam 2 sano lagu soo heshiiyey in ilmaha yar naaska la soo nuujiyo kadibna la soo celiyo waxa ay tiri aad baan uga murugoonaynaa inaan hooyadii u celinno oo inaga haysato barakada iyo khayrkaasaan doonaynaa waxay tiri hooyadii baan u nimid hooyadii baanu qancinnay niri magaaladu xanuun bay leedahay ka yar si fiican buu u barbaarayaa noodaa waan marsiiyey bay tiri calaa kullin way oggolaatay 2 sano oo kale ayaa loogu daray waxa ay tidhi waa imse sano 4 sano weeyaan ha la xafido 4 sano ayuu la joogaa reer bani sacad 4 sano markuu dhammaystay iyo dhowr bilood ayaa arrin baa dhacda bay tiri xaadisad shaqu sadr ayaa dhacay waxaa dhacay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam isaga oo la ciyaaraya carruurtii yarayd ee xaliima ay dhashay cabdillaahi ibn alxaaris iyo aniisa iyo isaga oo la ciyaaraya iyo xudaafa iyo aqalka dabadiisa kula ciyaaraya ayay malaa'ig u timid malaku jibriil baa u yimid dhar cadcad buu xidhan yahay qofuu iska soo dhigay tashti buu wataa dahaba biyo zamzamaa ka buuxa biyo zamzama ayaa ka buuxa moxamed buu qabtay calayhi الsalaatu wassalaam ciyaalkii kale way yaaceen qaar baa meel ka khaawusaya iyakoo arkaya ayuu kala dilaaciyey calooshiis waxbuu ka soo saaray uu tuuray markaasaa waxa uu yidhi haada xadu shayطaani minka shayطaanku waa meeshuu degayey ama shayطaanku jidhka insaanka wuxuu ku leeyahay meel waswaaska ugu tuuro ayuu ku leeyahay taasaa nebiga laga sifaynaya calayhi الsalaatu wassalaam shayطaan waswaasaya oo wax ku tuuraya oo male khalaas waa la sii edbinayaa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam risaalaa loo dhiibayaa waxyi baa loo dhiibayaa jasadkiisa caqligiisa waa la soo rabaynayaa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam waa la soo sifeeyey waa la soo maydhay biyaha zamzamkaa lagu maydhay tashti dahaba ayuu ku wadaa culimmadu waxay leeyihiin biyaha zamzamkaa lagu maydhay waxaa daliil u tahay biyaha zamzamku inay yihiin kuwa ugu fadliga badan biyaha
nebigaa ka warramay calayhi الsalaatu wassalaam waxa uu yidhi jibriil baa ii yimid wuu i qabtay laabtayduu kala dilaaciyey ama qalbigayga riwaayo kale wuu ka soo saaray wuu sifeeyey dib buu igu celiyey kadib nebigu waa saro kacay calayhi الsalaatu wassalaam isagoo oo wejigiisu uu dhalaalayo carruurtii baa carartay reerkii bay u soo sheegeen oo yidhaahdeen arrintaasaa dhacday soo orod waxa ay tidhi xaliima sacdiya aniga iyo odaygaygii oo ordayna ayaana nimid meeshii waxaan aragnay isagii oo wejigiisu u beddelan yahay riwaayo kale isagoo ooyaya ayaanu u nimid markaasaa ku nidhi maxaa ku helay markaasuu ka warramay qisaddii nin baa ii yimid way i qabtay siday ahayd buu uga warramay nebigu calayhi الsalaatu wassalaam anas waxa uu yidhi waa markii dambe nebigu weynaaday waxaan arkayay meeshii yacnii nebiga laga jeexay calaamad yar baan ka arki jiray buu yidhi way cabsatay haddeed inay dhibaata qabsato ayay ka cabsatay ka yar waxay tidhi waa inaan hooyadii u celiyo way doonaysaa kan yaree barakaysan inuu aqalka joogo laakiin waxay cabsanaysaa inay dhibaato ay heshay way celisay marka waxa ay ku celisay hooyadii ayay ku celisay hooyadii xaliima sacdiya waxay tidhi markaan hooyadii u imid ayaan ku idhi waa tan ammaanadii waan kuu keenay way iga shakiday waxay tihi markii hore aad baad u doonaysay hadda maxaa jira adaa keenay wakhtigii oon maarata weli wax inuu harsan yahay markaase waxay tihi waa kan ilmihiiya iga qabsa ammaanadii waxay waddaba way ka soo saartay waxay tihi nin baa u yimid oo caloosha jeexayo caynkaasoo waxa ay ku tihi aamina kallaa wallaahi laa yasnacu allaahu daalika bihi arrintaa ilaahay dhibaato uguma keenayo wax dhibaato oo wiilkaygan ku dhacaya ma jiro inna liibnii sha'na wiilkaygan yar arrin baa u sugan waxbaa jira ma kuu warramaa arrintiis waxa ay tidhi markii aan uuraystay in caloosha ku qaaday moxamed fawallaahi maa xamaltu xamlan qad kaana akhafa calaya minh wax ka fududaa maan arag caloosha in ku siday culays ma dareemin maaragtay dhibaato ma dareemin waxa ay tidhi walaa aysara minh wax ka fududaa maan arag wallaahi markaan dhalayayna nuur baa iga soo baxay aan ilaa basra arkay shaam wallaahi siday carruurta u dhashaanna umu dhalan waxa uu dhashay isaga oo qacmaha soo horaysiinaya samadana eegaya ayuu dhashay markaa waxay tidhi khalaas inankayga ha u cabsan inay dhibaata ay ku dhacdo ha u cabsan anaa haynaya anuu ila joogi maca salaama barakadiisa iyo khayrkiisaan anaguba heli dhimashada tegista ay tagtay aad bay uga murugood xaliima asacdiya hooyadii baa loo keenay hooyadii way barbaarisay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam 2 sane hays xaliima imise haysa xaliima 4 hooyadiina 2 sano waa imse jir markaa nebigu waa 6 jir nebigu calayhi الsalaatu wassalaam markii da'diisu ay 6 gaadhay ayuu nebigu hooyadii ka hays isaga iyo ummu ayman oo addoontii hooy aabbihii ay haysan jiray tii korisay weeyaan nebiga iyo cabdilmuطalib oo ahaa awowgii nebiga awowgii calayhi الsalaatu wassalaam waxay tidhi madiinaan tegaynaa waxaan soo bari madiina qabrigii aabbihii ayaan soo tusi abtiyaashii ayaan soo tusi oo xagga iyakuna deganaa xaggaa markii ay tagtay madiina waxaa loo socdaa waa 500 oo kilomitir weeyaan inay dadkooga ay soo barto ayay doonaysay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam waxaa xanuun baa xagga ku qabtay way xanuunsatay
markii waddada ay soo noqonayaan ay ku soo noqonayaan maka ayay dariiqa ku dhimatay meel maka iyo madiine u dhaxaysa oo magaceega la yidhaahdo al-abwaa ayay ku dhimatay xaggaasaa lagu aas iyadiina xaggaas ayay ku dhimatay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam da'diisu waa imse jir waa 6 hooye iyo aabba midna male hooyadii culimmada qaarkood waxay leeyihiin 20 jir dhowr iyo 20 jir baa 22 23 meelaha aabihiina imsuu ku dhintay 25 jir ayuu ku dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam cudur ma helin way caafimaad qabaan labaduba nebigu calayhi salaatu wasalaam laba waalid oo liita oo tacbaana kama dhalin labaduba way caafimaad qabeen oo jidhkoogu u dhisnaa laakiin ilaahay baa arrin kale ka raba meesha waxaa la leeyahay khalaas muhimaddiinnii nolosha way dhammaatay ininka waxay ahayd inaad moxamed keentaan moxamedna wuu yimid qof kale lama rabo inuu rabeeyo uu soo barbaariyo moxamed ilaahay baa soo barbaarinaya wax walba waa laga ilaalinayaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay wuxuu rabaa inuu soo barbaariyo isagu markii nebigu odhan jiray addabanii rabbii fa axsana ta'diibii ilaahay baa i edbiyey inanka yar haddaad dhirbaaxdid aabbihii buu ordi aabbo aabba hadduu lahayn hooyadii buu ordi hooyo nebigu hooyana male aabbana male yaa allahu si u yidhaahdo weeyaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa la soo edbinayaa luqadii baa la soo baray jidhkiisaa la soo dhisay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam hooyadii iyo aabbihii waa waayey nebigu calayhi الsalaatu waa kii ilaahay ugu jeclaa khalqiga haddaad aabbo weydid nebi maxamed xasuuso calayhi الsalaatu wasalaam hadday hooyo kaa dhimato nebi maxamed hooye aabba midna ma lahay 6 jir weeyaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nebiga waa la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam asxaabta waxay ku yidhaahdeen maa awalu bid'i amrika yaa rasuula allah arrintaada se u bilaabatay nebi allow maxay ku bilaabatay nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam aniga yacni hooyada iyo aabbahay ima bilaabin arrintaydu xaggaa kama bilaabmin way soo socotay ana dacwatu abi ibraahiim anigu waa ducadii nebi ibraahiim baan ahay nebi ibraahim muxuu lahaa rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نبي إبراهيم وحكو دعي إلهه كسو صار رحدودا قف إياك كمدة أو أدقة أو بربارية أو كتاب كبرة أو حكمة برة ودعاء نبي إبراهيم دو إلهي أقبله ولا سوذي دعادي يكون دعي دونتا الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي بصوذا كذب نبي وحا يلي عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى بشارة النبي عيسى أيام ولي بأهيبوا النبي عليه الصلاة والسلام نبي عيسى وسيب بشاري وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وسيب بشاري نبي عيسى سيب بشاري وحي من دونه نبي بقى من دون أحمد لي لهذا يا محمد عليه الصلاة والسلام بشارة صن أحب النبي يقول عليه الصلاة والسلام النبي يقول وحى ويلي هو يدي وحى أركت النور وافتمنا يا قصور الشام فيلا الشام كثيرة قوليها الدار الشام كثيرة نور افتمنا يا والشام علماء وحى يلهدين ابن كثير أو كله وحى ويلي وحى علامات الطهي دليل وحى الطهي إن نورك وجاري دون الشام إنه إسلامك آخر زمن والشام اسكو إيمان دونه والنبي عيسى آخر زمن كمركم مسيح الدجال وأرض وصومر ومال والبا وفساديو إن يدت كمسلمين تو الشام اسكو إيمان دونان والنبي عيسى حقا كسو دق دونه دمشق وحكى له النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال أمتي إذا كمدا أي حق كسجنان بيجي النبي عليه الصلاة والسلام أن لدبين أن هوجين كرين إلى قيامه وقد عيو رواية كلا وحى أهيد وهم بالشام ماشى الشام ليلهدو أي شوغان إذن
nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ducada nebi ibraahim bishaarada nebi ciise ayuu ahaa kadibna labadan waalid ayuu ilaahay u soo doortay markii ay dhaleen nebi moxamed way dhinteen waa 6 jir nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u soo arrintii u soo wareegtay awowgii waan ka soo hadalnay awowgii cabdilmuطalib siduu u jeclaa cabdillaahi aabbihi nebiga aabbihi waa inankii quraata uu dhalay weeyaan moxamed aad buu u jecel yahay aad buu ugu murugooday ka yar waa soo celiyey cabdilmuطalib dib buu u keenay ilaa maka ayuu ku soo celiyey isaga oo aad ugu murugaysan nebiguna aad buu hooyadii ugu ooyey calayhi الsalaatu wassalaam waxa uu aad buu u jeclaa waxa uu ahaa cabdilmuطalib nin aad loo jecel yahay buu ahaa nin dadkii quraysh ashraafta lahaa la garanayey ayuu ahaa nin waxa uu ahaa yacni waxaa loo dhigi jiray firaash baa loo dhigi jiray kacbada agteeda markaasa xaggaa lagu salaami jiray isagaa madax u ahaa quraysh oo dhan zaciim buu ahaa saadadooda ayuu ahaa laga dambeeyo firaash baa loo dhigi jiray xaggaasuu faliisan jiray carruurtiisuna way ag faliisan jireen nebiga adeeradii way ag faliisan jireen nebigu calayhi الsalaatu wassalaam isagoo oo inankaa yara 6 jir siduu u soo socdo ayaa wuxuu faliisan jiray firaashka awowgii siduu u soo socdo ayuu firaashka la faliisan jiray markaasay odhan jireen ka kac adeeradii inay keen riixaan bay rabaan oo yidhahdaan na ag fadhiisto meelaan fadhiiso firaashka lagulama fadhiisto odayga siduu u soo socdo nebigu faliisan jiray firaashka calayhi salaatu markaasaa wuxuu odhan jiray ii daaya inankayga dacuu ibni haada fawallaahi ina lahu la sha'na arrin baa u sugan wuxuu furaashkaa u soo fadhiisanayo arrimo kale ninkani waa la soo rabaynayaa waa la soo dhisayaa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam dhabarku u masixi jiray madaxu u taataaban jiray marmarka qaarkood wuxuu u diri jiray hawl odhan jiray or soo qabo siduu yahay uu soo fulin jiray arrintu maalin maalimaha ka mida ayaa wuxuu ku yidhi orodoo hashii meesha ka keen meel baa marka waa la waayey warkiisii odaygii aad buu u murugay kacbadu ku wareegay isagoo oo murugaysan carruurtiisii oo dhanna meel walba u diro yidhi orda oo raadiya moxamed waxa uu ku ducaysanayay isagoo oo kacbada ku wareegaya ayaa waxa uu lahaa rabbi rudda raakibii moxamada ruddahu lii wasna cindii yada ilaahu moxamed ii soo celi ilaahu wanaag ii samee oo moxamed soo celi kadib nebigu calayhi الsalaatu wassalaam in yar kadib uu yimid markaasaa waxa uu ku yidhi laqad xasintu calayka ya bni kalmar'a waan kuu murugooday buu yidhi inankaygiiyo sida haweenaydu u murugto oo kale ayaan kugu murugooday xusnan laa yufaariqunii abada murug aan iga faaruqayn ayaan kuu murugooday waxa uu la joogay awoogii 2 sano waa imisa sano markaa nebigu waa 8 jir awowgiina wuu dhintay nebiga calayhi الsalaatu wassalaam markuu ku dhintay da'diisu waxay ahayd culummada qaarkood waxay leeyiin 110 jir buu ah qaarkoodna waxay leeyiin 144 buu ah ilaahay baa u kaadinay intuu nebiga korinaya 2 sano aad buu ugu murugay wuxuu u yeedhay inankiisii markuu arkay inuu xanuunsanayo xanuunkan uu ka kacayn ayuu u yeedhay inankiisii abi aalib ayuu u yeedhay nebiga adeerkii abi aalib iyo cabdillaahi nebiga aabihii waxay ahaayeen isku bah bay ahaayeen yacni isku hooyo iyo aabbo ayay ahaayeen labadaasoo qorantaa isku hooyo aabbaha inta kale hooyooyin kale ayay ahaayeen wuxuu u yeedhay markaa abu aalib buu u yeedhay cabdilmuطalib baa u yeedhay inankiisa waxa uu ku yidhi inankii adaan kugu ogahay moxamed ah waka hooyadii iyo aabbihii way dhinteen anigiina waa aniga adaan kugu ogahay waa yahay buu yidhi waa dhintay odaygii awowgii ah nebigu aad buu ugu murugay
calayhi الsalaaةu wasalaam waxa uu u soo wareegay kafaaladii iyo barbaarintii adeerkii abu aalib ah. odaygan adeerkii abu aalib wuu ciyaal badan yahay, lacag badanna ma haysto, waa iska miskiin faqiir weeyaan. wuxuu u baahan yahay, isagaa u baahanba wax carruurta la koriya ayuu u baahan yahay. aad buu u jecel yahay moxamed. carruurtiisa kale oo dhan wuxuu leeyahay laga qabto, walaalihii buu leeyahay carruurta ila koriya, laakiin moxamed waxa uu leeyahay aniga uma korinaya. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam adeerkiibu u soo wareegay. waa imse jir nebigu? ya 8 jir weeyaan. adeerkii baa korinaya hadda. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam isaga oo yar oo 8 jir 9 jir isaga oo da'daasa ayaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxa uu ka fikirayaa adeerkii siduu u gargaari lahaa ayuu ka fikirayaa. wuu ciyaal badan yahay waana miskiin. wuxuu bilaabay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam inuu adhiga eego, adhiga inuu ree maka u eego, adhiga uu lacag ka qaato oo lacagta adeerkii siiyo. ciyaalkeenu maanta way cunaanoo way cabbaanoo odaygii oo macaan leh oo dhanaan leh oo sariir leh oo gebigiisu wala xanuunsanaya ayaa subaxdii ka lahaa oo duhurkii yimaada wiilkii oo iska hurda, waxuu qabanaya male. duhurkii buu kicii markaasuu leeyahay jaadkii aawa. innaga waa sida xaaladdeenu. waa kaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga oo yar oo 8 jir 9 jira ayaa wuxuu ku fikirayaa siduu u shaqaysan lahaa, adeerkii u gargaari lahaa ayuu ku fikirayaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam. ree maka ayuu adhiga u eegayey, lacag buu ka qaadan jiray. waxa uu yidhi nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam maa bacثa allahu nebiya ilaa raca alghanam. ilaahay ma soo dirin nebi ilaa adhigu soo eegayey. nebi walba adhigu soo eegayey. nebi muuse waad garanaysa, adhigu soo eegayey. nebi ciise, nebi walbuu ilaahay soo diro adhigaa la soo raacin jiray. cajiib, meesha waa la soo tarbiyaynayaa. addabanii rabbii fa axsana ta'diibii. adhiga ninka adhi jirahu uu ka sabir badan yahay ka geela jira. geela waad ku sii dayno neefka meelaha umudaaqi oo khalaas marka dambana uu iska fadhiisan. adhigu kala baahi, kana jabi, kana meel ka dhici, uu kala baahaya. adhigu wuxuu u baahan yahay waxaasoo dhan in la soo celiyo. wuxuu u baahan yahay ka tabarta daran inaad qaadid. wuxuu u baahan yahay inaad isku keentid. ma faliisanaysid. kan geela eegaya ama looda hadhka iska geedka hoostiisa iska faliisan xaggaa ma ka eegi. ka adhi jiruhu ma faliisanaya. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddanaa loo diri doonaa. way kala baahsan yihiin, caqiido kala duwan bay wataan, asnaam fara badan bay wataan. sabirkaa la barayaa, adeegaa la barayaa, waa la soo rabaynayaa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam. adhi jire ayaa laga dhigay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam. waxaa la barayaa alyad اlculya khayru min alyad الsuflaa. inaad isku filnaatid adigu ayaa la barayaa. asxaabta waxaa ku yidhi nebi allo adiguna adhiga maad eegi jirta? haa buu nebigu yidhi, waan eegi jiray. wuu ku faanayaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam, waan eegi jiray adhiga. lacag yar baan ree maka ugu eegi jiray. xaafid ibnu xajar markuu ka warramayey arrintaasi waxa uu keenay adhi jiraha inta faa'iido uu helo ninka adhi jiruhu. sabirkuu bartaa, dulqaadkuu bartaa, tawaaduc isma weynaysiiyo oo maarata waa adhi jiraan ahay buu leeyahay. isma weynaysiinay, sabirku baranayaa. yani wax badan buu maarata ayuu sheegay. ilaahay wuxuu karaa nebigiisa calayhi الsalaaةu wasalaam inuu guriga u joogo dahab u buuxiyo oo lacag u buuxiyo oo ilaahay wuu karaa. laakiin nimcaddan zaayidkii ma soo saarto qof fayow. carruurta yare nimcadda ku korta, cun oo cab oo seexo oo maarata ma fikirayo, wax ma baranayo. aabbihii baa lacag leh, ma fikirayo ummadda humuumta haysa. televisaagaasuu daawan, kanuu cuni, kanuu jebin, baabuur kala jiituu wataa. ma fikirayo se ummadda u fikirayo, ma fikirayo. kaa yare shandadda marna tiriga laga goynayo, marna biyaha laga goynayo, ee xamaalanaya, ee ordaya, kaasaa wax baran kara. ilaahay waxa uu barayaa nebigiisa calayhi الsalaaةu wasalaam inuuna dadka u baahan u shaqaysto ayaa la barayaa. ninka daaciga ah
waxaa la rabaa inay gacantiisu ay ka sarayso inuu dadka u baryo oo dadka uu ku maarta hoos joogo ambiyadu saasay ahaayeen dadka lacag kama qaadan jirin waxay oran jireen ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وحن نجد دوني ملك ضدو العقل إني قبل ربو والشقي سنة يا إلهي حق السنة إني قيري النبي وحا يري صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وحا يري قف معن عنتو كخير بضن waxa uu soo shaqaystay isagu waxa uu soo shaqaystay taas ugu khayr badan cunto aad cuntid cuntada aad soo shaqaysatid ayaa ugu khayr badan nabigu waxa uu yiri wa inna nabiyallahi daawud alayhi salaam nabi daawud kana yaakulu min amali yadihi waxa uu shaqaysto ayuu cuni jiray beeruhu garaaci jiray oo marka qofka muslimka ah waxa la rabaa inuu shaqaysto una u baahan dadka Abu Talib waxa guriga ku soo biiray Muhammad alayhi salatu wasalaam kow marka hore nabigu culays kuma soo biirin reerkii shaqo bilaabay nabigu alayhi salatu wasalaam talabaad waxay arkeen guriga in uu soo galay wiil yar oo barakaysan waxa uu arkay caruurtiisa markuu cuntada u dhigo markaaba way ku leefaan ma dhargaana way soo taagayeen laakiin markuu nabi Muhammad la cuno Muhammad markuu la cuno alayhi salatu wasalaam way dhargayeen wuu arkataa caano hadday cabbaan ma kaafinayso sida wuxuu oran jiray markuu cuntada uu soo dhigo ayaa wuxuu oran jiray sida atihiin ahaada kama antum hatta yaati ibni ila inankayga uu ka imanaya Muhammad markuu yimaado iyo oran jiray la cun markaas bilaabi jiray markaas oran jiray ma inigu filan tahay way dhargeen caana markii la keeno Muhammad buu ku bilaabi jiray nabigu markuu afka u saaray barakadiisii ku yaacdo way ku filnaan jirtay inta kale markaas wala cabayeen waxba ka soo haray hadii kale waa lagu go'aya meesha subaxdii markay caruurtu soo toosaan xafaji iyo soo toosan ma qaar dhareerli iyo waxay arkeen aweenadiisa Faatuma la oran jiray oo aad u jecleed nabiga alayhi salatu wasalaam waxay aragtay caruurtu markay subaxdii soo wala toosaan يكو حفاجان أو درير له لكن نبي جوه سوتو سيري عليه الصلاة والسلام سوى أو دراليا أو إندكولان أي سوتو سيري درير يحفاجي من اللهين أي سوتو سيري و أركي بركة يا خير كقصص عظا أيو أركي كدب مال ما كميدا waxaa dhacay abaar xoog ayaa dhacday reemaka abaar bay dareemeen roobkii baa habsaamay wala isku orday waxaa loo yimid Abu Talib waxa la yiri kaaliba roob doon ba sameeynay Abu Talib waxa uu soo kaxeeyay sida uu ibn Asakir uu ku soo saaray kitaabkiisa waxa uu soo kaxeeyay Muhammad buu soo kaxeeyay isagoo u jiidaya oo caruurtiisina wala ag socoto waa khayr buu ku ogyahay barako ku ogyahay Kaabada ayuu dhabarka u saaray midkii oo dhan xagga joogan qacantu ku fiiqay rabbi waxaan ku weydiisanayna ya rabbi rabbna si isagoo farta ku fiiqaya waxa uu yiri fa aqbala as-sahabu min huna wa min huna darurihum ay soo qabsaday dhinac walba ka yimid roob baa noo fatahay wabiyaashii baa jabay dhulkii oo dhan nimcad iyo khayr baa ka dilaacay waa barakada nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وكيلها أبو طالب بركذا سكرك وحدوني يمر والبهد السيء بركذا أهله إنه أكحيو ميل والب حتى مركو تجارة جناعسي أو جناعسي تجيو شو شقيسنا يو وحر ما إنه كحيو محمد سيء بركذا يا خير كاس أهله وحا ودوني إنه جناع صد أذي أبو طالب أها
shaam buu tijaaro geynayaa xagga iyo shaam buu u kacayaa nebiga da'diisu waa 12 jir hadda da'diisu waa imisa waa 12 iyo 2 bilood abu طaalib ayaa ka haystay wuxuu rabaa inuu baro suuqa sida loo ganacsado waxay socdaanba markay shaam yimaadeen meel basro la yidhaahda markay yimaadeen waxay raacsanayd roomaanka markay haysto xukm roomaan bay haystay laakiin waxay ahayd carabta waa dhulkii carabta ay roomaan ku haysteen dariiqaas meesha marka ay joogaan meesha ninbaa iska fadhiya raahiba sheekh culimmadii waaweyneed ee kiristanka ah ayaa meesha iska fadhiya meeshaasuu ku cibaadaystaa adduunkan iyo waxaanaan ka go'ay buu leeyahay anu xaggan baan ku cibaadaysanayaa ninkaa raahibka ah buxayra ayaa loogu yeedhi jiray laakiin magaciisa waxaa la odhan jiray jarjiis baa la odhan jiray dadka uma soo bixi jirin maalinkaa wuu soo baxay way ka yaabeen cunta u sameeyey wuu soo dhoweeyey way ka yaabeen mar walba waan soo marnaa ninkan ma soo baxay maanta intuu soo baxay cunto loo sameeyey casuumadii maxaa dhacay dadkii buu dhex marmaray siduu u dhex socday ayuu maxamed gacanta qabtay calayhi الsalaatu wasalaam markaasaa waxa uu yidhi haadaa sayid الcaalamiin haadaa yabcaثuhu allahu raxmata lilcaalamiin kani waa sayidka caalamka oo dhan kani waa ka ilaahay naxariis uu soo diri doono ummadda oo dhan caalamka oo dhan abu طaalib ayaa meesha ka soo booday markaasaa waxa uu ku yidhi maa hada algulaamu minki wiilka yar maxaad u tahay markaasaa waxa yidhi waa inankaygii aad buu u jecla marka wuxuu odhan jiray waa inankaygii adeer baan u ahay ma odhan jiri waa inankaygii buu yidhi waxa uu ku yidhi maa huwa biibnik inankaaga ma aha runta sheeg waxa uu yidhi adeer baan u ahay aawe aabbihii buu yidhi wuu dhintay buu yidhi waa sax buu yidhi isaga oo hooyadii ay uur leedahay ayuu dhintay waxa uu yidhi wiilkan yar la noqo ma kala tag sida ugu dhaqsaha badan ula noqo ninkan yar wuxuu noqon doonaa rasuul buu noqon doonaa nebi ayuu noqon doonaa waa nebiga la sugayo waxa uu ku yidhi oo maxaad ku ogtahay maxaad ku garanaysaa waxa uu yidhi markaad meesha yara taagga aad ka soo dhaadhacayseen baan ini eegayey wallaahi lam yabqa xajarun walaa shajar ilaa wakhara saajidan dhagax iyo geed muu soo agmarin ka yari ilaa way u sujuudayeen dhagaxa u sujuudayey geedka u sujuudayey wax walbuu agmaro u sujuudayey sujuuddu caabudaad ma ahayn waqtigaa yacni waxa weeyaan waa salaan way salaamayeen walaa tasjudu ilaa linnebiy nebi mooyaane wax kale uma sujuudaan wa innii acrifuh bikhaatami الnubuwa fii asf waxa uu ku yidhi waxaan ku garan oo kale dhabarkana shaambad buu ku leeyahay nebinimada caddaynaysa inuu nebi yahay dhabarkiisuu eego calaamaddii sida tufaaxa oo kale oo inuu aakhiru ambiyaa inuu yahay caddaynaysa shaambad ayaa ku taala waxa uu yidhi wiilkan yar la noqo yahuuddu way garanaysaa kitaabkuu ku qoran yahay tilmaamihiisa waa nebi ciisa sii sheegay nebi ciise ka sii warramay akhlaaqdiisa magiciisa calaamaadka lagu garanayo oo dhan nebi maxamed baa nebi ciisa sii warramay waa la wala garanayaa waqtigiisina uu dhow yahay marka waa la wala sugayaa markay arkaan isaga oo geedihii u sujuudayaan dhagixii u sujuudayo waxay odhanayaan waa kana way dilayaan roomaankuna way dilayaan marka kan yar haddaad la tegtid shaam yahuud baa joogta meeshaas way garanayaan horena way ka dilayaan waxaan kugu dardaarmi inaad celisid odaygii baa doonay inuu ku yar adkaysto dhamay waa ka tegi kari maayo waa inaan u yariyo ana noqon kari maayo waa u diiday si walba celi buu yidhi ka yar siduu u waday wuu celiyey isagu ma celinaya wuxuu raaciyey dhalin yar buu raaciyey waa la celiyey nebiga calayhi الsalaatu wasalaam maka ayaa dib loogu celiyey nebiga da'diisu waa 25 jir waan talaabsannay 25 jir markii uu gaadhay nebigu waxaa dhacay dagaal la yidhaahdo xarbulfujaar ayaa dhacay quraysh iyo kanaana reer bani kanaana oo dhinac ka soo jeeda iyo qays qabiil la yidhaahdo qays ibnu caylaan
la yidhaahdo ayaa iska hor yimid oo islaayeen marka quraysh baa aad isku dhexdoodii dagaal xoog la ka dhacay waa qurayshum waa qabaa'ilkii quraysh ayaa islaayeen nebigu calayhi salaatu wassalaam dagaalka uu ka qayb galay laakiin ma dagaalamayn ilaahay baa ka ilaalinaya inuu wax dhiig uu yaaciyo adeeradii buu laabka u hagaajinaya u siinaya u difaacaya bas laakiin ma dagaalamaya nebigu calayhi salaatu wassalaam waxaa xarbul fujaar loogu bixiyey bilihii xurumka ahaa ee la dagaalamayn ee xaaraanta ahayd in la dagaalamo ayay dagaalameen marka waxaa loo bixiyey xarbul fujaar waa dagaalkii kuwii dembiilayaasha ah ay dagaalameen ayaa loo bixiyey kadib waxaa dhacay nin ayaa yimid yaman ka yimid maka ayuu yimid wuxuu wataa xamaan buu wataa wuxuu rabaa maka inuu ku iibiyo waa reer zubayd waa yaman markuu ku iibinayey nin la yidhaahdo alcaas ibnu waa'il assahmi ayaa ku yidhi xoolaha iga iibi xoolihii buu siiyey hadhow baan kuu keeni buu ku yidhi kaala iga qaad buu ku yidhi kaala iga qaad waa tamaanta la yidhahdo kaala iga qaad waa u diiday arrintaasi dhibaatay ku noqotay ninkii qabaa'ilkiiba u dhawaaqday cabdidaar makhzuum reer jumax sahman qabaa'ilkiiba u dhawaaqay war ii gurmada yaman baan ka imido xoolaan wato xoolii ninkana iga wala dhacay war hala ii gurmado war waa maka ree makaa tihiin war wuu cabaaday meesha wax u dhaqaaqa ayaa la waayey arrintaasi markii ay sidaa dhacday ayaa waxa uu koray buurta la yidhaahdo abi qubays iyo kor ninkii buurta korkeega ayuu ka dhawaaqay gabay buu tiriyey marka uu leeyahay ma la ii gurmado xaram baa lagu jiraa ma la ii gurmado oo la ii naxo nin baa xoolahaygii dhacay waxaa u tegey zubayr ibn cabdilmuطalib ayaa u tegey waxa uu yihi war ninkan intuu isagii soo kaxeeyey ayuu carabtii kuwii quraysh ayuu u yimid wuxuu ihi wareedhaha sidani sax ma ah ninkani waa makan dhex joognaa dad baa lagu dhacaya xaramka dhexdiisa miyaa sax ma ah ninkan maan u kaalmayno oo wax u qabanno waa la iskugu yimid meeshii qabaa'ilkii oo dhan baa iskugu yimid reer bani haashim reer bani cabdilmuطalib asad ibni cabdilcuza zahra ibnu kilaab taym ibnu mur qabaa'ilkii baa iskugu yimid guriga waxaa la isku yimid cabdillaahi ibnu jadcaan gurigiis ayaa la isku yimid heshiis baa lagu galay ballan adag baa la iska qabtay in nin alla ninka maka lagu dulmiyo in loo kaalmaynayo muxamedna uu ka qayb galay sala allahu calayhi wasalam nebiguna shirkaasuu ku jiray waa nusrat almadluum ka la dulmiyo ee la gardaraysto waa in la difaaco taasaa lagu heshiiyey way dhaqaaqeenoo ninkiiba xoolihii uga soo qaadeen nebigu calayhi salaatu wassalaam uu ku faani jiray waxa uu odhan jiray waa markii dambe uu nebi noqday laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bnu jadcaan xilfan maa uxibu anna lii bihi xumuru nicam wuxuu odhan jiray waxaan ka qayb galay shir ama heshiis lagu galay guriga cabdillaahi ibnu jadcaan oo dulmiga lagaga hortegayo wallaahi wax aan ka jeclahay ma jira buu nebigu calayhi salaatu wassalaam haddii la igu yeedho iminka kaasoo kalena la ajabtu buu yidhi nebigu waan yeeli lahaa waan ajiibi lahaa waxaa loo bixiyey xilf alfuduul ayaa loo bixiyey yacni qaar badanoo fadl la odhanayay ayaa ku jiray culimmada qaarkood yidhaahdaan markaasaa la yidhi waa heshiistii dadkii fadli ka kacayay xilf alfuduul baa loo bixiyey nebigu waa ka qayb galay da'diisu waa imisa ya 25 jir weeyaan nebigu calayhi الsalaatu wassalaam way socotay nolosha nebigu calayhi الsalaatu wassalaam 25 jir isagoo oo weli da'diisu ay tahay ayaa waxa uu bilaabay in uu ganacsi u shaqaysto isagaa tijaaro bilaabaya nebigu calayhi الsalaatu wassalaam
tijaaro ayuu bilaabaya laakiin intaan tijaarada aanu sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa inan yar da'diisu waa 25 jir ilaahay waa ka ilaaliyey nebigiisa wax alla waxa xumaanta ay shabaabku sameeyaan oo dhan ilaahay waa ka ilaaliyey khamri macabin sanab uma sujuudin gabadh lama haasaawin wax walba oo xumaan oo dhan ilaahay waa ka ilaaliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam أدبني ربي فأحسن تأديبي إلهي بسوء بنيا ولا صوت ديارنا يا النبي عليه الصلاة والسلام حمان أردن ووقتك شباب كل اليهين حمان أردن إلهي كسوء إلهي وحقول النبي ما هممت بشيء مما كان في الجاهلية وحيدتك جاهلية أي سمينيين كمان همبين بالنبي كما فكرين لبق قرمو يعني waxa uu yidhi labadaa goor isaga oo nebigu uu ka warramayo waxa uu yidhi labadaa goorna ilaahay baa iga qabtay aniga oo buurta jooga oo adhi ku eegaya ayaa wiilkii yaraya adhiga ila eegayey ayaa waxaan ku idhi adhiga iga sii eeg caawa han soo caweeyo makahan tago shabaabka makaan la soo caweeye waayahay buu yidhi wuxuu yidhi waan imid makaan imid boorti baan ka imid waxaan arkay guri lagu ciyaarayo oo shanqadha iyo wax ka dhacaya aan maqlayo ayaan imid buu yidhi markaasaan waxaan idhi maxaa meesha ka jira markaasaa waxaa la yidhi waa aroos waa la ciyaarayaa oo meesha waa lagu tumanayaa waxa uu yidhi waxaan doonay inaan dhegaysto oon daawado sida u ciyaarayaan waxa uu yidhi meeshii aan sidaa u faliistay ilaahay hurdu ii keenay dhag indhaha uma la igu qabtay wallaahi maa ayqadanii ilaa xaru shams cadcadda iftiinkaygii iyo kuliilkaygiiba ay toosiyey buhi nebigu subaxdii waa la iseexiyey cadcadda kuliilkaygii ayay toosiyey subaxdii meesha waa laga kala tegay arooska waa laga kala yaaco waa la dadka way seexdeenoo waa la tooso cadcaddi ba ay toosiyey buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kalena sidaas silag baan ku fikiray buu yidhi inaan soo caweeyoon sidii silag hurdaa laygu salliday waa la ii geliyey buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi bacdahaa iguma soo dhicin inaan caweeyo oon shabaabka iyo waxaa la soo caweeyo iguma soo dhicin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu bilaabay sala allahu calayhi wasalam da'diisu isaga oo 25 jir ay tahay inuu tijaaro ganacsi inuu bilaabo khadiija haweeney la yidhaahdo ayaa jirta markay joogtaa waa haweeney lacag leh taajirada weeyaan sharaf bay leedahay nasab bay leedahay waa naag la yaqaano waa naag carmaliya dadka oo dhan ragga waaweyn ee saadada waa la furay waa aad bay u doonayaan haweeneyda inay guursadaan lacag bay leedahay rag badan baa u shaqeeya oo lacagteeda loogu shaqeeya haweeneydaas ayaa waxay maqashay maxamed waa nin yaro aamina waa nin yar run badan waxay maqashay wasfi nebiga la tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam awsaaftii nebiga waa ina yar oo adag oo quwad leh oo edeb leh oo ixtiraam badan oo been aan aqoon oo waxaasoo dhan bay maqashay wiil yar oo la jooga iyada ayay u dirtay tiri igu yeedh ha ii shaqeeyee lacagteedii u dhiibatay wuu dhaqaaqay nebigu xaggaa iyo shaam ayuu dhaqaaqay si uu ugu soo shaqeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam shaam buu tegey isaga oo xoolihii wada waxaa la socday wiil yar ay maysara la yidhaahdo maysara ayaa la yidhahdaa waa addoon iyada ay lahayd khadiija wiilkaasaa la socday nebigu wax badan uu sii qaaday uu soo iibiyey aad buu u soo macaash ilaahay baa barako u gelinaya meeshuu galaba waa la sii diyaarinayaa addabanii rabbii fa axsana ta'diibi waa la sii barakeeyey wixii uu sii qaaday oo dhan waa laga qaatay barako badanna ilaahay uu geliyey xooluu ka soo iibiyey shaam markuu kaano hore looga iibsaday barakuu ilaahay u geliyey lacag badan oo ina weligeed helin ayuu soo hooyey oo aka way jeclaatay marka wuu guursanayaa khadiija nebigu calayhi salaatu wasalaam khadiija markay aragtay barakada ammaanadiisa runtiisa
wanaagiisa quruxdiisa waa nin dhisan waa nin rabbi u rabeeyey way jeclaatay rag badan oo doonaya way iska diiday agoonkan yar ee jecesh akhlaaqdiisa diintiisa edebtiisa ay ku jecesh haweene kale u sheegtay u sheegi kari weydaan ku jecel ay gurso oran kari weyday haweene kale oo ay saaxiib yihiin oo nafiisa la oranayay ayay u sheegtay oo tiri maxamed baan rabaa inuu guursado way dhaqaaqdo haweeneydii nebiga u tagtay calayhi salaatu wassalaam ka warrabay tiri arrintaas nebigu wuxuu yidhi waa yahay oon ogolahay da'diisu waa imisa waa 25 iyadana waa 40 jir imisa sanay ka weyn tahay 15 sano ayay ka weyn tahay nebiga calayhi salaatu wassalaam laakiin waa naag akhlaaq leh waa naag edeb badan weeyaan nebiga arrintiibuu adeeradiibuu u sheegay adeeradiibaa u doonay nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuu aroos galay khalaas u guursaday waxay ahayd haweeney sharaf leh nasabkayga la yaqaano caqli badan ayay ahayd waa haweeneydii ugu horeysay uu nebigu guursado intay noolayd haweeney kale ma guursan nebigu calayhi salaatu wassalaam awlaaddiisa oo dhanna nebiga iyadaa u dhashay marka laga reebo inankiisa ibraahim marka laga reebo inta kale iyadaa u dhashay awlaadda nebiga mise ahayd ma garanaysaan 7 ahayn awlaadda nebiga calayhi salaatu wassalaam zaynab ruqiya umu kalhuum faatima hablo waa imis 4 waa zaynab iyo ruqaya iyo umu kalhuum iyo faatima weeyaan cabdillaahi waa inamadii cabdillaahi oo daahir baa magac loogu yeedhi jiray yani loo bixiyey cabdillaahi iyo qaasim iyo ibraahim haweeney kalaa dhashay maariya alqibtiya waan ka warrami doonaa ayaa dhashay awlaaddiisu gebi inamadu iyaka oo wala yar bay dhinteen mid baaluqe ma jirto gebi iyaka oo inamadu wala yaryar ayay dhinteen hablaha ayaa gaadhay islaamka gebigoodna wala islaameen wana wala hijroodeen gebigood isagoo oo nool ayuu nebigu wala aasay hablihiisii ilaa faatima mooyaane hablihiisu gebi isaga wala aasay carruurtiisa oo dhan waxaa hadhayo faatima ayaa hadhay faatima mise ka dambaysay nebiga 6 bilood bes nebiga carruur male way wala raaceen nebiga calayhi salaatu wassalaam hooyey aabbana male laakiin nebigu maanta waxaan ku jirnaa isaga oo guursaday khadiija aroos wanaagsan ayaan kula jirnaa nebiga calayhi salaatu wassalaam jumcaha dambe hadduu alla yidhaahdo ayaan xagga ka sii qaadi doonaa وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله